السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن عافيمات تامة أيان دين رجينيا meel kastoo adduunka aad ka joogtaan. qaar ka mid a dadka ku xidhan kanaalkeena caafimaadka ee dhakhtarka caafimaadka qoyska ayaa waxay noo soo qoraan in badan aan ka arkayay iyagoo kommentiyada iyo qaybta message-ka messenger-ka way nagu reebaya fariin ah waxaad ka soo hadashaa preservative. maxay yihiin preservatives? laakiin mayay sababaan oral cancer, abdominal cancer, lungs cancer iyo sidoo kale in kansarada noocyadeeda kala duwan ee qaybaha jidhkeena asiiba ku dhaca. xanuunka kale ee types of gastritis ama types of gastriga noocyada kala duwan ee xanuunka gaaskana mayay sababaan. maqasaba inay noqdaan liquid iyo powder. maxay yihiin arrintan oo bulshadeenu ay aad iyo aad ugu dhegtaagaysan doonaynaa muuqaalkan kooban inaynu kaga hadalno. kuwan waxaa la yidhaahdaa ilaaliyayaal. preservativesku waa ilaaliyayaal. waxa ay ka ilaaliyaan cuntooyinka inta badan qasaacadaysan ama moorka ama processedka ah ee la qasaacadeeyey ee la warshadeeyey ee la soo saaray ayaa waxaa lagaga ilaaliyaa inuu dhikay garoobaan ama inay markaas spoiled ay noqdaan ay xumaadaan iyo inay qurmaan iyo inay isbedelaan dabcad ahaan siifad ahaan iyo quality ahaan intaba. kuwani markaas marka la isticmaalayo waxyaabo kala duwan ama siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa waxaanay ku xidhantahay shayga lagu isticmaalayo in lagu ilaaliyo oo lagaga ilaaliyo qurunka iyo xumaanshaha iyo isbedelka si shaygaa muddo badan loo iibgeeyo, muddo badan uu wooli karo, muddo badan mustacmal u noqon karo oo la isticmaali karo waqti dheer oo markaa shayga isagoo aan dee xumaanin uu muddo badan la isticmaali karo. haddaba kuwani marka laga hadlayo waxaad arkaysaa iyadoo laga digayo kansarro badan oo laga qaado, iyadoo laga digayo xanuunada gaaska noocyadiisa kala duwan ay sababaan. tusaale ahaan haddaynu soo qaadanno cabitaanada aynu cabno, waxaad aragteen kuwo baca ku xidhan oo cabitaan laga samaysto. hadday liintay, hadday cananaastay, hadday cambe tahay, bacay ku xidhan yihiin. markaa cambihii caadiga ahaa ayaa la soo qasaacadeeyey ama balastig lagu soo shubay, kadibna waa isaga oo bowdhara ayaad cabitaan ka dhiganaysaa. marka aad misho waxay dadka qaar kuu soo qorayaan ama aad arkaysaaba gunta ugu hooseeya bowdhar cad baa fadhiisanaya. kadib dadku taa way ka warwaraan waxaanay ka bixiyaan in markaas ay noqdaan kuwo alleer u ah oo arrintan ay cabsi ku abuurayso ama ay dareemayaan inay kuwan ay ka qaadayaan kansar. haddaba haddaynu kuwan ku soo dhowaano kansarada laga qaado ee ay sababaan lama oga. haddii la og yahay in kansar laga qaado si toosaa looga digi lahaa warshadaha iyo kambaniyada soo saaraa inay joojiyaan. kansarkana inta badan sidiisaba waxa main factorka ah lama yaqaano ee sababa, waayo xanuunka haddii la ogaado waxa sababa way fudud tahay in awareness laga sameeyo, way fudud tahay in profession laga sameeyo, way fudud tahay dadka in laga wacyigeliyo oo xanuunkii laga hortago. haddii xanuunka la ogaado waxa sababa qayb ka mid ah dawadiisii baa la helay. marka kansarada inta badan waxa sababa lama yaqaano. kansarkuna waa uu kala noocyo duwan yahay, meelaha uu ku dhaco iyo waxyaabaha keenaana aad iyo aad bay u kala bedelan yihiin. haddaba haddii aynu ku soo dhowaano kuwan dhibtoodu ma sii badna, laakiin maxaa loo baahan yahay? sayfna ma wada aha oo qaarkood khataro waa laga qaadi karaa. waxa ugu weyn ee ilaa hadda dhakhaatiirtu ay cabsida ugu faraha badan ay ka qabaan dadku inay ka qaadaan tusaale ahaan cabitaanada bowdharka ee balastigyada ku xidhan ama qasaacadaha ku xidhan in
ay keenaan laabjeexan iyo gaastari. weliba liinta iyo cananaaska bowdharka iyo xataa cambaha dhammaantood cabitaanada inta badan qasaacadaysan ama balaastiga ku xidhani inay keenaan gaaska caloosha ku dhaca oo ay xanuunkaa gaaska ay horseedaan oo qofkii uu laabjeexan dareemo ama calooshu ay olosho. kuwaas aad iyo aad bay dhakhaatiirtu related uga dhigaan ama ay yidhaahdaan way keeni karaan ama ay sababaan. haddaba halkan waxaynu bulsho ahaan aynu uga wacyigelinaynaa qofku haddii uu heli karo inuu cambe dabeeciye helo, inuu cananas dabeeciye helo, inuu muus dabeeciye helo, inuu liin dabeeciye helo, fadlan ha iska dhaafo kuwa aan dabeeciga ahayn ee qasaacadaysan ama bacaha ku xidhan. ha iska dhaafo cabitaanku doonaba ha ahaadee, waayo marnaba caafimaad ahaan ma taageero caafimaadku waxyaabaha aan dabeeciga ahayn, hadday cabitaan noqoto iyo hadday cunto kale noqoto intaba. kansarka waxaa jira kansarada runtii shaki aad u weyn oo ku hareeraysan cabitaanadaas oo laga shaki qabo oo dhakhaatiirta qudhoodu weli ay ku hayaan inay research fiican ay ku sameeyaan, inay si wanaagsan loo baadho, in dabakal caafimaad lagu wado, laakiin aan weli si cad oo waadax ah oo laysku waafaqsan yahay aan bannaanka loo soo dhigin. markaas cabitaanada dabeeciga ayaa mar kasta kaaga wanaagsan ama cuntooyinka dabeeciga ayaa mar kasta kaaga fiican inaad isticmaasho. dhinaca kale kuwa lagu sameeyo ilaaliyayaashan aynu ka hadlayno kuwana waa kuwo sidooda loo cabo oo tusaale ahaan kale iminka cabitaankii bacda ku xidhnaa ama qasaacadda ku xidhnaa intaad caadi u furatay baad biyo ku darsato waad cabtay. kuwana dabbay galeen oo sida tusaale ahaan oo kale iminka cuntooyinka sida hilibka la qasaacadeeyo iyo cuntooyinka la qasaacadeeyo kuwaas iyaga dabka dib loo gelinayaa way sii kala sayfsan yihiin. kuwa dabka dib loo gelinayo sayfkoodu wuu badnaanayaa say dhakhaatiirtu ay u badan yihiin maadaama ay dab gelayaan, laakiin kan caadiga loo cabayo ee inta la qasto biyo lagu qasto caadiga loo cabayo waa kaaga khataro badan ay ka dhalan karaan. runtii shaki badanina ku hareeraysan yahay iyo markaas madow badan oo u baahan in bulshada looga digo. intaasaynu ku soo ururaynayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.